Soomaalida maanta ummad ahaan iyo qaran ahaan midna uma bad qabto oo waxay maraysaa heerkii ugu xumaa taariikhda dheer oo uu jiray unuga Soomaaliyeed. Waxaa dhintay Soomaalinimadii, qarannimadii iyo islaamnimadii Soomaalidu ku ahayd ummad jirta oo magac iyo mabda'ba leh. waxaa dadka taariikhyahanka ay sheegaan in Soomaalidu ay leedahay cadow badan oo muslim iyo gaalaba isugu jira, kuwaasi oo dana badan oo siyaasadeed ka leh dhulka iyo dadka Soomaaliyeed. sideedaba siyaasadaha reer galbeedka laba waxaa xukuma waa dhaqaale oo resources la yiraahdo iyo diin. loobiga diinigaahu waa aad u xoog badan yahay, asagaa dhaqaajiya siyaasadaha, dhaqaaluhuna meeshiisu ku jiraa. Soomaaliya baddaas aadka u dheer iyo ummadaas tirada yar in la milaal rabaa. 91 dagaalkii ahliga Soomaaliya markuu ka dhacay, ummadii waa la qaxiyey, xerooyin qaxootiya looga sameeyay Ethiopia iyo Kenya iyo Yemen iyo meel walba waa la raray. ummadda ugu dhaqsaha badan oo Yurub iyo North America iyo Australia loo qaaday ahayd Soomaalidu. waxaa loogu talagalay xerooyinka qaxootiga oo transitka ay ku yihiin in lagu dhaqan bedelo horta ilmahooda, caruurtooda, oo xagga markay tagaan 10 sano 20 sano kadib uu soo baxo jiil cusub oo diintiisii bedelmay. waxaa la bedelay ummad 10 milyan oo Andalus ku tiila la bedelay. 10 milyan oo waliba waxa la bedelay adiga 800 sano ka hor la bedelay. 10 milyan oo hadda waqtigan joogta oo ummadii oo dhan adduunkii oo dhan uu noqday tuulo yar uu noqday, bedelkeedu waxba qaadan maysa Allah, laakiin waa usoo roobi weyse. ciyaar ma waxaan dii sheegayaa su'aal yar oo gaaban baan oo fahamtaan baan idinku siin. kolka inagu laba qoys saddex qoys aan hadisba u qaadnay iminka in Mareykanka iyo Yurub dhoofinayno in beenta sheegayno imisa habeen walba oromada soo gasha. ma la socotaan boorama sheegaya hadda ma la socotaan inta habeen walba oromo soo gasho masalan boorama dadka kolka loo suuq aad u fiirsato ilaa maalin walba dumar cusub baa yimaada, caruur cusub baa timaada. taqriiban habeen walba 20 qoys way soo gashaan oo isjiidanayo oo deena waa masaakiin u bandhanaya socda ayaa soo gala. magaalada dir dhaba la dhaay lahaan jiray maanta sayaale ma la socotaan dir dhaba Soomaali baa lahaan jirtay, maantana Oromaale, maantana Oromaale. axmed midib male 100 sano soo socda ma 50 sano soo socda boorama inay noqoto magaalo Oromo hodib male. dhalinyartan u sheegaya soo koraysa mustaqbal baan higsanaynaa le. mustaqbalku haduu yahay ka Yurub eedu yaacaysan anu ka jawaab maayo, waa baab kale. laakiin haduu mustaqbalku yahay Soomaali inaad tahay oo dawlad yeelan doonto oo wadankan yeelan doonto oo warshado ka samaysan doonto sida maanta aanu naala maya waligeedna lagu gaari maayo. wada cayrin waa lagu wala wareegi meel dhaweyta marba waxaan yiri hadii muddo yar aan joogno dadba kuma haran wadanka. ani waxaan meel intaan ka dhoofay Soomaaliya gudaheeda iyo Soomaaliland gudaheeda ayaa jirta oo 600 kilomitir socday. hada dadku ma arkin meeshii geel ma ku arkay in yar waliba geelka gaaban aan ku arkay. meelna waxaan ku arkay dad ma ku arkay dad ma arkin dad gaalka ay ka tag ilaa garaw ka tagta hadda tuulooyin yar markaa waxaa socod bal inta Nairobi ka baxay waxaa tagtaa ilaa 30 kilomitir 2 milyan oo qof baad mari. Soomaaliya oo dhan waxa ku haray 10 milyan ma dhan. waxaan nacayaha ka jira 150 milyan oo maaragtay oo jiraan ah. waa lagu laqi si fudud baa lagu laqi. mama aysan garanin kumisiga sirtiisa goboladii dhulkeeni hadba loo koobay garyaqaa kuma yagooyay go'aankii. mama aysan garanin kumisiga sirtiisa goboladii dhulkeeni hadba loo koobay garyaqaa kuma yagooyay go'aankii. Soomaalidii qabkii iyo qiimihii iyo isla weynidii iyo Soomaalinimadii iyo qarannimadii waa kasii dhimanaysaa. nin Soomaali aamini maayo. ninka Etoobiyaanka
ayuuna ka baqaa na aaminsan yahay marka wax aanan lagugu dayayn ma jirta Soomaaliya mid baan idin sheegay dhageysta haddana markaan meesha soo socday baa qof ma ila hadlo wuxuu yiri warniyo xogaa annagana waan ka yar cabsanaynaa bal xabashidii Mareykanka waxa ka sheegin kowdi waxaan iri waxa iyaga aan kala cabsan waayay adika ma cabsanayo toosama ayagii waxaan kala cabsan waayay la Mareykan wax ka qodweyn ma jireen Ethiopia bal matal markaan ka soo qaaday laba dawlad goboleed ama laba gobol oo Soomaali ah kan ayay hadda waxyaabihii ka dhacay Buulaxaw iyo Doolow iyo dhinacaas laba qabiil ayaa qabiil la taageeraya markii la taageero kan kale uu dareemo in la taageero kii kale uu wafdi u diro Ethiopia waa balance garaynaysaa kii ay hub siinaysaa waa kii ay taageertaa kii kale ayay hub siinaysaa kii ay taageertaa la pressure la saaraya kii oo dacwaha misna imaanaya magaalo ayay al-shabaab ka saaraysaa berrito waxaad moodaa inay isu baaqeen ayadii al-shabaab habeen madoobay ka baxaysaa dadkii oo dawladnimadii rabay oo ku farxay al-shabaab oo sawirro laga duubay ama YouTube laga sameeyay ayay al-shabaab inta usoo noqdaan madaxa ka wada jarayaan ma aaminsan Ethiopia rabta in Soomaaliya nabad ka dhacdo Ethiopia jarduqeed ayay ku ciyaaraysaa Soomaalida qabiil qabiil gobol gobol degmo degmo tuulo tuulo Soomaalidu marka waa inay fahmaan jarta Ethiopia ay ciyaarayso meeshan ummadan inay si kala disho Ethiopia anay saaxiib nala tahay Kenya anay saaxiib nala tahay hebel anigu ceenkana leeyahay haddaan nahay daarood haddaan nahay hawiyo haddaan nahay dir haddaan nahay qolba qoys sheego kulligan waa lidu adeegan haya qabaa'ilka Soomaaliya oo dhammaantood way adeegsadeen Ethiopia iyo Kenya way adeegsadeen qof Ilaahay u naxariistay ma ahane dad baa waxay isu malaynayaan maryahoodu inay u cadcad yihiin hebel baa adeegsaday Ethiopia hebel baa soo qaatay Soomaaliya let's speak guys true anga run u hadal annaga ma maqnin mana aan dalka ka maqnayn dalka joognaa yaa waaye reerka aan Ethiopia soo adeegsan tell me yaawe yaan mingisto soo adeegsan yaan meel soo adeegsan yaan hubka ka soo qaadan si qarankii Soomaaliyeed loo burburiyo yaa waaye idan Soomaalida waa dambiile yaalbaana markaasaan waxaan ku darsanay inta shir laynoo qabto in layna yiraahdo see xubnaha u kala qaybsanaa maanta waxaan akhrinayay joornaalka qosol oo oy gobol nin jooga oo madaxa wuxuu leeyahay dawlad Soomaaliyeed ma dhacayso mana sugnaanayso reerka iyagu haddaanay intaa helin what the hell you are talking about maxay tahay reerka iyagu haddaanay tahay dambiilaaba tahay xukun waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad baraha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay it's you not other one it's not America it's not Europe it's not Japan it's not Kenya nor it's Ethiopia it's only Somalis who killed themselves وأيجا وأيدي شيء رنت معها والله بالله أنا أحين عيار أنت الصومالي إسكدي شيء إيا أنت إثيوبيا كدي شيء يا بلن صومالي أنت يدي شابلن صومالي أنت اللي سابلن صومالي أنت بلايك وسوق جام سابلن وحال الربع قضية كوب الله لا ينوي بالرواية تصبنا دقن فنانين وروحنا لكلاي intaasoo wiil maydkoodii hoobiyaa lagu dhuftay markaasaa nala ka laayay marka reer qansax waa inaan ka doonanaa dhiiggii buu ka doontay markaasuu keenay lacag baa la soo siiyey markaasuu lacagtii inta dhigtay asagu horta baaka weyn oo bacmadowhu dhigtay markaasuu haddana qaybiyey kii af mishaara kii kala siiyey kiise ciddii wiilka uu ka dhintay baa waxaa ku soo aaday wax yar oo taafi ah إلهي بن يكون داريه مصلحة دوم مثلا مركي
reerkiisu wax dilaanna faa'iido weeye oo lacag buu ka soo aruurin reerka markii reerkiisa wax laga dilana faa'iido weeye oo lacag buu ka soo aruurin qoladii kale dagaal inuu joogsado maraba mid baa matalahayay qabuurada qoda wuxuu dhahay war annaga qabuurada in dadku isdilaan baan rabnaa inay dadku islaayaan oo dhimashadu ay badataan rabnaa buu leeyahay waa run dad baa raba dad baa ku ceeshahay dad baa nolol u arkay dad baa aaminsan inayna noolaan karin haddii aan arrintaas laga bixin yaa bedeli karaa maskax meel bay fadhiisataa waa da' bay noqotaa isbeddel ma ogola maskaxna isbeddel bay diyaar u tahay dhallinyaradiinaan way disintegration of state and society baa Soomaaliya lagu sameyn ha kala jabaan qoys qoys qabiil qabiil caa'ilad caa'ilad fariiqa fariiqa maxay ahayd madhab madhab wax kastaba ha noqdaan markaasaa balkanization lagu sameyn tuula tuulaa lagu hagaajin oo la oranayo idinka isxukuma idinka isxukuma idinka isxukuma marka ugu dambeysana dissolution baa lagu sameyn oo lagu laqaya gabigaada oo dhan waxaan u malaynayaa the script is going on exactly the way we saw it from the beginning dadka Soomaalida ah waxay ku jiraan tiih ay ku jiraan intii 40 sano ku dhawaad ah dawladii Maxamed Siyaad oo caburin jirtay faa'iidooyin badan ayay lahayd ugu yaraan qarannimada ilaalinaysay ugu yaraan qabkii ilaalinaysay tiih ay ku jiraan qofka Soomaaliga ma yaqaan wuxuu rabo nin waliba walaalkiisu ka baqaya nin waliba walaalkiisu jaasuusaya nin waliba walaalkiisu darajo ku helaya labada tuulo oo isugu dhow ayaga magacyada la kala baxay oo kala cararay oo kala turkay tii Itoobiya u hormartaana libinta leh hadda sida la aaminsan yahay tii Itoobiya u hormarta ayaa libinta leh quwadiyo itaalkii laygu wada qadarin jiray qowmiyada jacaylkii qarshe iyo dinkiisii qasiidooyinkoodii qowlkii calyaygii timacadee maamurti waa beri qabanqaabadoodii maxaa qaatay ee helay miyay iga qatoobeen laakiin marka la leeyahay Sir Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo wiilwaal wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo xawataaka waxay noqotay Ethiopian oo loo hagaajiyo taalo looga hagaajiyo waxa lagu leeyahay Axmed Gurey Maxamed Siyaad Baraan kulli ku soo dareen list oo malayna mardhow markii saal lagu leeyahay waxa lagu leeyahay qaran matihida qabiil anaga iga tirsan baad weliga ahayd anaa ku xukumi intaba ما هين لو هيري أنا ذيك ترسلت وياه حيل السلاس بأورنجري من الخ بأورنجري It's not this is a Bedouin tribes or Somali or part of the Ethiopian empire يكمل هين وياه بعد كل شيء عسكري according to them وأنا كل راعي سنة يساعدك waxaa dhici doonta ilaahay naga koriyo inaan goobjoog ka noqono waxaa dhici doonta hadda waxa loo kala hormaraya Ethiopia ninkii raali ka noqon lahayd madaxda goboladan yaryarka iyo tuulooyinkan hadda sameysmaya qofkii Ethiopia raali ka noqon lahayd ninba Ethiopia ciidankii ugu horeeyay ku faana inuu keenay ciidan Ethiopian waddanka soo galiyay ninba ku faana inuu wasiiro iyo garab iyo uu ku leeyahay Ethiopia ninba ku faana wax walba waa la soo dhaafay ninba markuu jaga isu sharaxay Ethiopia iska soo sharxa oo Ethiopia sabab asagoo taagan yiraahda anigu waxaan u tartamayaa dawlad goboleed hebel haddaysan raali ka noqon ay tahay sheekadiisu waxa iman doonta in lagu kala hormaro ku biirista Ethiopia loo tago la yiraahdo gobol idin kamid ahanahay aniga iida gobolkayga wixii aad danahood ka leedahay waa ku siinayaa waxaad ii noqotaa maxaa la yiraahdaa backup ii noqo ii ogolow iga difaac kuwa kale ugu dhadhagan laanlaankan kale oo dhan iga difaac adigan ku hoos tagaa diiwaanka gasho sida baasboor la mideeyo la yiraahdo waa la mideynayaa tareeno laga sameeyo jidad laga sameeyo dekadihii ragga fadhiya Ethiopia noqdaan konsuliyadahan iyo waxa la baabi'iyo nin district governor ama whatever ah oo Ethiopia hoostaga u yimaado tartiib ummadan Ethiopia loo hoosgeeyo taasoo soo socota karaawayashan gobanimada ka doormeeray gasin eebe idin qorin si xallo makoobe qarankeena gadamaysa dhalinta u ku bacday
gobonimada ka doorbiday gasin eebbe idin qorin si xun looma koobe qarankeena gadamaysa dhalinta u kumacday one script wiilal yaryar oo yaa sheekada iska wadaan oo maantana kuwana kor loo qaadi 4 maalmood waxa weeyaan Puntland baa garab la siini marka waxoogaa joogto waxaadana 4 maalmood kale Somaliland baa garab la siini 5 maalmood nin xamar jooga ayaa maarsaba tagi oo inta si warwareegi 5 kale ku kala lagu hagaajin kismay hadana kiimaan mar waxa dila joog maxay ahayd digil mirfle iyo baydhabo iyo meelahaas shariifka loo yeeri aabihim baad fuudka la cabaysan awgeena lagu gubi dhageystaa idin sheegay ودا عجبي سيدي قرنكي مولعي ودا عجبي سيدي قرنكي مولعي ودا عجبي سيدي قرنكي مولعي laakiin waxa iyadana dhab ah gudaha qofka Soomaaliga ah Soomaalinimo inay ku jirto laakiin qaabkii uu soo saari lahaa iyo cidii fursad siin lahayd ay tahay madax wanaagsan oo Soomaaliyeed oo xalaal ah oo cadaalad ah haduu heli lahaa qofka Soomaaliga waxaan kala dhan meel iska dhigi lahaa anu taasaan aaminsanahay qabo anu waxaan qaba aragti Soomaali ah Soomaali ila NFD ila Djibouti anu wali shantii umma rumaysana shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan ayaa lagu heesi jiray bari shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan markana ma xawlan jireen nin lagu saddexdii maqnaadana way soo socdaane nin lagu seexdo ha seexan soo jeedo si weyn u foojugnow waxaas ma hees baheed mise waxayd murti idinku waxba kama garanaysaan maanta wallaahi billaahi maanta idinka qofka Etoobiyaanka ama Kenyaanka ama Sangulida ka sii shashaysa ayaa wax walba kala qaalisan laakiin Soomaaligu saas uu eegi jiray waxa jira odayaasha Ingiriisku qortay looran jiray timacada looran jiray ee ciidamadii dagaalkii labaad inay raad Sangulida hanagu darin aan hilib waxaan ma cunano kasaafahan iyo waxa jeeyay si arab khidiyo ma cunno yiraahdeen saas darteed ciidan gaar ay haayeen laakiin iyagu maanta waxaan ogahay inanka jaamacadda ka soo baxay masteradkii inuu yaro keenayna salada u qaadayo oo lan kuruuska ka saarayo waayo midna gaar buu ka yahay midna waa turjumaan midna waa darawal intaasaan u qaybsanay waxaan quursan jiray bari ka qashaafi jiray hore qasamaigu noqoto dani maigu qaabato dulnimo maqaayibay qayrkay ma tuugsaday mahantiyay cadhiili buureed qacda waranka fiiraha qaniyada halkay mudan weli maan qandaysanahay waabay qaraariyo maqatuubay jahannama waqtiga isqaliibaye anay qoontu iigu taal ma xadaatanii qaban ma adaani kala qubin udhahayga socoto maarunaan qarsoome qarkama iska tuura al-shabaab meesha uma joogto ummadda Soomaaliyeed wiilasha yararka ahna in maskaxda laga siray iyo inay kamid yihiin in lagu adeeganayo in ajnabi ku dhex jiraan inta way isku jirtaa waxay u joogaan interestiga cadawga Soomaaliyeed haddii la tirtira maanta ma tirtirayaan iyagaa beerayaan they created themselves ma rabaan inay tirtiraan waa gabdha wiilal yaryar weeyaan 2,000 waxaa lagu tirtiri karaa in less than a month they wouldn't do that it gives them the justification for them to be involved in your affairs on a permanent basis shabaab dib u socod mujrimiin dhiig yacab weeye xoolaha dadkooda xalaalsaday shabaab magac dhalinyaro inaad dhahdeen magaceenna ma aha kuma samaynaysiin بديل بان ربنا إن التهدين شباب كقوة لدها يديك عبان وقوة صدق دلها أن كنا وحنا هذا اللي يروى كنا وحنا بسينا وين التهدين not in my name وين التهدين ما قاعد لقمت منها هي وطنك ما قاعد قدتك لقمت دلها هي ما قاعد قدتك لقمت بركعينها هي ما قاعد قدتك على الله جم السماينها هي ما قاعد قدتك اللي يسقمت درها هي ما قاعد قدتك عبسي لقمت قلنا ما قاعد قدتك لقمت مقد لقمت قلنا ما قاعد النعابي علاد يحسد يحد لقمت قلنا إن التهدين بالله ينكربه
haddii aan isla fahamno arrintaas waan wada guulaysanay waxaan ahay nin dalaba waxaan ahay nin dalabaabi oo diiday oo jabay waxaan ahay nimaan doobi culin 10 diraacood waxaan ahay diilkiisa iyo nimay dhuuxu dirire waxaan ahay nimaan dadabgalayn dirirka cawleed waxaan ahay nimaan dabxeer wadan duufaanada dhaca waxa diililyada igu wacan daaqaday go'ay darbiga dhifto darbiga dhisaya markuu dumiye saaskii daayaha dagoogmiye qalbigan dhaxal ku aafeeyay Soomaalinimadii way dhibatay qalbigan dhaxal ku aafeeyay daarahan burburay dabashan ooyaysa dooxa ilmada soo rogay dubayda yeeraysa waxa reerba kii ugu daraa u fiirso miya reer kasta bahal nacasa hortaagan waxa reerba kii ugu daraa ugu dulmeerayo ee doqon haco iyo dabaa loo dalqaminayo ama diricyadaydii ragga aqoonta leh dalka wuxuu tari lahaa ama diricyadaydii sandahay iga degi weyday war dalkani muu goblabin dalkeenu muu goblabin oo nin ragii kama dawaarayn diriday xariiqan dirida markii cid wax weydiiso waayeen diriday xariiqan ragii daabadaha ciilawgeed waxay dabakeena soo sidaan bay iga degi weyday qarandidu daloob maahmaah baa jirta gabayga waan ka baxayaa Soomaaliyeed baasha qarandida leeyahay waa doqon xayawaanada Ilaahay abuuray bay ugu doqonsan tahay god bay qodaa ugxanteeda ay dhigtaa godka ma gashayadu weerka baalka yare leeyahay Soomaaliyeed ayaa ka cuna Soomaali maanta aniga maxay laaniyo Soomaaliya maxba loo kala go'ay amxaarkii dalku uu furan yahay Soomaaligi la ilaaha illa Allah Muhammad rasuulullah laha masaajidka isoo ku jiro tukanaya la tooganaya qarandidu dalluun bay qodaa waana diba joog waxay dadaaliyo xoog duubiyada maasho dugsigeeda weeruun baahantiya maalma dabadeed wax la dira dadkayga jiroontii doraa dhiban waxay Soomaali 20 sanadood dabada diifta ula jiiftay iyo maanta waxay dabacsan yihiin bayga deg weyd wata farmaajo la soo oriyay ummadoo kala maana isku meel u jeeda haddii xaaja muhiima muftaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertada la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii la ismaagana mar baa la iscafiyaa ma dhammaata colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkaysto madaqayrka horseediyo maslaxooyinka diidana ma rasto salfadaa dagaal maatada wiiqana makaanku dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa hadal aad u macaaniyo mowqifaan soconayna mooye suu noqon doonee Soomaalay dan muhiim iyo haddaad waana maqlaysid wax maamuusan lahayn oo magacooda ku raaciyo maal gargaar lagu sheego meelna kugu filayn inta aad mahayo iyo meeyay ku jirtaan mugdi baad huridaan oo markab qud lagu keenaya maqoonaad sugataan oo madaal kii idin siyaad magantiisa tihiin mana sheegad sheeyay muhiimtooda iyo beenta waad ka maarmi kartaan dad iyo humays maqashaan oo idinkoo isku maanaho isku mowqif ku taagin mawlahay barida mar in la isku filnaadana martama u xirataan oo maraa waaxid dalkeena ma guraanka iyo qeyrka rabbigay ku manaystiyo macdanta iska taaliyo miidamaad dhurataan oo kulligiin maalqabeen iyo milyaneer noqotaan oo wadankeena macaaniyo mahadsan gacantiin war maxaa maskaxda iyo miyirkeen ka qaaday war meedna arkeen murugmaarugshey waxaan ka macaashnay war meedna arkeen mudnaantii dhaqankeena iyo halka maanta aan joogno war meedna arkeen ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war meedna arkeen mashaqada dalka taalla war meedna arkeen masiibooyinka muuqda war meedna arkeen mahadhooyinka beerbay war meedna arkeen dilka aan marna joogsan war meedna arkeen inta ruux mudana iyo dar muhiima la laayay war meedna arkeen malaayiinta qaxaysa war meedna arkeen inta moolka badweynta maayada ku dhamaatay war meedna arkeen dadka meel kasta daadsan war meedna arkeen macaluush iyo cayrta war meedna arkeen musanowga dhalaanka war meedna arkeen qurbaha maatada joogta mid ay la kulmaan war meedna arkeen dadka waayay maciinka magaciinina sheegta war meedna arkeen dalintiina maxbuusan war meedna arkeen kuwa jeelka ku meeyday war meedna arkeen muwaadiniinta dhamaatay war meedna arkeen mahuraanada qoostay war meedna arkeen magaca si dhimanaya war meedna arkeen dadkeenoo kala maarmin sida loo kala meeray war meedna arkeen midnimadii ummadeenoo ma hayooy ku dhammaato maanta taagan xaduudyo war meedna arkeen mariidkii isticmaalka misna taagan agteena inuu maamulo ciido meel cidla uu ka qaato marrabaan la gumaysana maanta aad ugu dhaarsan war maxaa maskaxda iyo miyirka in ka qaaday maxnad aan baxahaynayo masiibooyin la yaab leh meel kastoo laga sheego allaahuma naajayna muslimiintu dhahaan anna xaaja maruurtiya midda haysa dadkeena meel kastaa ka caddeeyo murtidaan ku tilmaamaya malaayiin xil u waashay ayagaa isu muuqdeen oo waxbay maqlayaan
keligaa wax marooqsay ku mashquulsan yihiinoo kulligood madaxweyniya mudane aan dhacahaynba mid kastaaba rabaayo maare loo heli maayo mar hore lagu daalo waa midday isku seegtaye anoon mawjada oogin waxna aan maldahaynin dan guud halka ay ka maroortay aan marqaato u yeele qof kastoo magac guudiya matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadinahayow maanta maalin adduuniya badan weeye la joogo anna xaaje maroortiyo dan guud meelka dhaceeda aan marqaato u yeele qof kastoo magac guudiya matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadinahayow maanta maalin adduuniya badan weeye la joogee wax markaa ku hor yaala masna aad sahlanayso berri meel xun tagayiyo wax masaalaxa keenoo dadku ay mahdiyaanoo madmadow aan lahayn labadaa kala miiroo miisaamoo kala saarto midka qayr kala qaata haddii laismaqli waayana muddo waa berri toole mawdna waa mahuraane ilaahuna masaabaxoo noo macin weligeen